أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, walaalayaal waxaan jeclaystay kliibkan yarka ah inaan saddex shay aan la wadaago oo saddexdaa shay aan isku baraarujino anigoo nafteeda horta number 1 anigu u baahanahay ininkan aan inigu baraarujiyo. walaalayaal saddexdaa shay waxa waaye adiga iyo cilaaqaadka naga dhaxeeya, adiga iyo xiriirka naga dhaxeeya waa sida Allah subhanahu wa ta'ala. talabaad waxa waaye adiga iyo xiriirka naga dhaxeeya quraanka waa sidee. ta saddexaad waxa waaye adiga iyo qaraabadaada xiriirka naga dhaxeeya waa sidee. walaalayaal waa inaad ogaataa adiga iyo rabbiga xiriirka naga dhaxeeya, waa inaad isweydiisaa Allah subhanahu wa ta'ala wax raali ku yahay miyaa samaynaysaa mise waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka caragelinaya ayaa samaynaysaa. walaalayaal waa inaad sakin kasta, saacad kasta, daqiiqad kasta, mar kasta isweydiisaa anigu waxaan samaynayo ilaah subhanahu wa ta'ala raali ma ka yahay. walaalayaal ilaah subhanahu wa ta'ala wax kasta waa arka, wax ka qarsoon ma jiro. waa inaad mar kasta qalbigaaga aad ku oo aad ogaataa adiga iyo xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala naga dhaxeeya waa inaad hagaajisaa. oo walaalayaal sidee loo hagaajin karaa xiriirka adiga ilaah ka dhaxeeya? walaalayaal waxa hagaajin kartaa wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku amray samay, wuxuu Allah ka reebana ka har. waayo kalimatu laa ilaaha ila allah muhammadur rasuulullah. walaalayaal waxayna faraysaa kelmadaasi wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala na amray inaan samayno, wuxuu inaga reebayna aan ka harno. waa inaad markasta isweydiisaa wuxuu Allah amray miyaa sameeyey mise wuxuu Allah iga reebay ayaa samaynaya. walaalayaal adiga xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala waa inaad ogaataa Allah waa arhamur raahimiin. walaalayaal haddaad dambi gasho bini aadam baa tahay, kulli waa dambi gali karna bini aadam bana, laakiin walaalayaal ilaahay waxa waaye arhamur raahimiin. inta naxariista ugu naxariis badan way naxariista rabbiga ha ka quusan, naxariista ilaahay ha ka quusan, weliga qalbigaaga naxariista Allah ka bixi. dambiga adduunka ugu weyn samee, nin baa 100 qof dilay, jannada ilaahay buu galay. waa arhamur raahimiin. wax la sameeyay waa qof dila waaye 100 qof buu dilay, jannadu galay. walaalayaal dambi kasta samee, wax kasta sina hadarto gal, tuug noqo, dadka xamo, waxa rabto samee, laakiin ha ilaawin arhamur raahimiin inaad leedahay, boqor ku jecel inaad haysato, rabbi ku jecel inaad leedahay. saacad kasta, waqti kasta albaabkiisu furan yahay, mar kasta aad dhahdo yaa rabbi yaa arhamur raahimiin, adoonkaaga baanahay ilaahu ii dambi dhaaf, ilaahu dunuubteeda dhaaf aad dhahdo, aad ilmayso, aad dambigaa samayso, aad ka qoomamayso, Allah subhanahu wa ta'ala wuu ku dambi dhaafaya. ilaah subhanahu wa ta'ala kuwa xasuusta, kuwa markasta qalbigooda ku haya Allah naga dhigo. walaalayaal aamiin. walaalayaal talabaad waxa waaye aan rabo inaan la wadaago nafteena aan ku baraarujiyo kow anigu u baahnay ininkana walaalahay aan nagu baraarujiyo waxa waaye walaalayaal waa quraanka. walaalayaal adiga quraanka xiriirka naga dhaxeeya sidee waaye? walaalayaal waa inaad ku dadaashaa quraanka akhrintiisa, waa inaad maanta quraanka haddii aad maalintii aad mashquula tahay waa inaad mobaylkaaga ku shubataa, waa inaad dhegeysataa. waxyaabo badan oo kuu fududeynaya ayaa jira maanta quraanka inaad dhegeysato. markasta waa inaad ku haysataa qalbigaaga saakay waan kacay, habeen waa seexanaya caaway, markaad seexanaysa waxaa leedahay intaad seexan baad isbeddeleysaa. maanta quraan ma akhriyay, maanta imisa quraan baan akhriyay, jis baan akhriyay, xisbi baan akhriyay, suurad baan akhriyay, aayad baan akhriyay. waa inaad isweydiisaa adiga quraanka saaki ma hees baan dhageystay mise quraan baan dhageystay? saaki hees baan dhageystay, saakadada hore hees bay ahayd, hees baan dhageystay. waad seexanaya haddeer, Allah subhanahu wa ta'ala ba dambi dhaaf weydiisanaya. quraankiisa soo qaado 5 daqiiqo, 10 daqiiqo, 2 daqiiqo akhri quraanka Allah subhanahu wa ta'ala. waa kalaamki ilaahay. sidee intuu waa kugu bariyay gabal kugu dhacaya, maalinta labaad kugu imaanaysa adigoo quraanka Allah subhanahu wa ta'ala akhrin. walaalayaal kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala aan ku dadaalno oo heesaha ee waxaan iska dayno oo qalbigeena ku weynaan quraanka Allah subhanahu wa ta'ala. kan saddexaad aan rabo inaan la wadaago waxa walaalayaal qaraabada inaan xiriirino, walaalayaal qaraabada inaan ogaano. walaalayaal Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maalmuhu sii dhimanay, walaalayaal wuxuu ku darmay 3 shay ayay ahaayeen. kow wuxuu yiri war salaada ku dadaala, salaada walaalayaal waa dayacna maanta, ilaahu salaadaha naga aqbal. waa ognan xaalad salaadeenu tahay. kow wuxuu yiri salaada ku dadaala. laba wuxuu yiri raggu la hadla, wuxuu yiri war dumarkiina sawjaadkiina u roonaada,
saddex qaraabada xiriiriya qaraabada walaal waa ina xiriirina qaraabada walaal aad bay muhiim u tahay walaal nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis macnihiisa wuxuu yiri qofkii doonaya risqiga in loo barakeeyo qofkii doonaya mataqaanaa nolol dheer in la siiyo oo waqtiga loo barakeeyo oo nolol dheer uu rabo inuu noolaado qaraabadiisa xiriiriyo walaalayaal laba baraka ka helaynaa risqiga lagu barakeeyo iyo cimriga kuu barakoobo cimri dheer Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyo labada waxa ku helayna qaraabada oo la xiriiriyo walaalayaal qaraabadana xiriirino qaraabadana ogaano qaraabada markasta aa wacdo oo hooyada wac aabaha wac ayeeyada wac walaalaha wac qaraabadu aad u badan tahay qaraabada adeerka eedada ina qaraabada xiriiraysa ma aha ina dhahdo aniga hadii aan waxna siinan ama mataqaanaa wax siinin aan lacag ahayn ama hadaa waxna ahayn aan wax siinin maxaan u xiriirnaa maaha walaalayaal hadalka wanaagsan waa sadaqo inaad saaka eedada wacdo abtiga wacdo awowaha wacdo walaasha wacdo walaalka wacdo gabadha xaaskaaga wacdo dadka aad mataqaanaa aad kala fogtihiin ama iyaduna ninkeeda wacdo oo xaaladaada ka waran see tahay adeerkaa wacdo adeer ii waran reerkii see yahay caruurtii see yihiin qaraabadaada inaad xiriirayso qaraabada inaad ku dadaalna walaalayaal saddexdaa shay baa mataqaanaa inagula dadaarmaya anigoo iniga baahi badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh